داوديال حوجة صوب حيو يوحى الشيعيان إن عبد محمود عمر عبد إلي إن عسبات يوفي مملكة التكريجة هذا واحد صوب على حوجة الشيعيو إن شرقال إلى ما جنيه هذا بحكي تأسي محاك الصحة محاك كبين نحو دول استيقظون هذه بين هذا سيدو كلام ورمضوا وحقي باللابين ورتوسا يكو قاضيان أحمر يركودي وينكودي دولان توسا يكو قاضي سوق الاستراكيش وسير دك إثيوبيا بيجي لفتو داك كقيب كا أحمر دي iyo oromadii iyo dawladii waxa waa isku waashay Ethiopia meel matana u sahlan malaha barnaamijkan waxa ugu wehelay Soomaaliya in falanqayn doono saaxiibkay Dr. Shade oo si weyn ula socday balse dagaaladan iyo colaadan iyo abiy xaaladiisa waa u soo noqon doona iyo dawlad deegaanka maalmahan inta soo deeyay Cabdi Maxamed muqaaladan tirada badan ay sii deynayaan faafinayaan ila lafteeda waan arki doonaa bal aan ku bilowno casuumada loo fidiyay Cabdi Maxamed Umar ay u fidiyeen Tigreega iyo waxa laga maagan yahay maxaa saca Dr. Shade soo wanda way saaxib qodobkan ugu horeeyo leeyahay Gidaajo iyo Dibrizon Gibril Kaayil waxay casuumada fidiyeen Cabdi Maxamed Umar dadka qaar waxay raacanayaan ninkan waxay doonayaan inay sumeeyaan oo ay dilaan maadaama uu sirahooda u og yahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay bidhaanow arintan xogahan waa xogaysa soo taraya oo marba marka ka dambaysa maartay ay warbaahinta si xooga ay u soo gaadhayso casuumada Cabdi Ilay loo fidiyay maqala ku wajahan Cabdi Ilay in maqala uu tago oo Tigray u tago waji kale ay yeelaysaa siyaasadda dawlad deegaanka Soomaalida dhanka asagiya Tigrayga xiriirka ka dhaxay wada shaqayntii ay soo wadeen labada waa laga filan karaa kala duwan mid positive iyo mid negative labada waa laga filan karaa Cabdi Ilay inuu maqala tago oo Tigray u tago oo halkaasi xooga TPLF uu kula shiro ama siyaasadiisii si uu boorka dib uga jifo ama Tigray uu la midooba ama maqalaba uu saldhig ka dhigto dawladda Itoobiya miyaysa horta inuu maqala tago dawladda Itoobiya ayadoon Tigray weli si xooga gacan loogu haynin oo nimanka TPLF weli ay seefla yurur yihiin xurguf weyn ay ka dhaxayso aan ogeyn maalmihii la soo dhaafay inay dhaxdhaxadin aad u balaaray ka socotay magaalada Addis Ababa oo dawladaysiin midowga Afrika ka socda kuwa Mareykan ka socda kuwa Yurub ka socda dhammaan ay dhaxdhaxadinayaan maqala intay tageen ay madaxda Tigray soo sameeyeen oo Addis Ababa keeneen ayaga ra'iisul wasaaraha soo fadhiisay laga wada hadlayay sidii heshiiskii loo dhameystiri lahaa Tigray laga yaabo inay dagaal soo qaadaan si saacad maalinle ahna u soo tababar ciidamada u tiro badan maalinimada shalay waxay baahiyeen muuqaalo ciidamada u tiro badan oo leeyihiin ciidamadana 300 oo kun bay gaarayaan dhalinyarada diiwaan gelis u diyaarsan Tigrayga dhahaya si ay dhiigooda ugu horaan maartay dalkooda u difaacaan weli nimankaasi niman ma gacan lagu hayo waa niman weli awood isbaday waa niman dawladda Itoobiya awood la garabta tirsanaya waayo oo inay dalkan ayagu ay abi meesha dhaafiyaan ku xisaabtamayaan marka casuumadan ay Tigraygu wadaan Cabdi ma u saamaxaysa inuu tago makale diyaarantu Addis Ababa ka raaco oo gobolka Tigray ka dago oo dawladda Itoobiya ay fasaxdo horta mid su'aal waa dib baan ugu noqon doonaa iyadoo in la isweydiiyo waa mid u baahan laakiin hadduu Tigray tago oo casuumadaas uu aqbalo laba mid bay noqon in ay tahay dilkan la sheegayo oo shirqool ah sababtoo waxaan ogeyn TPLF markay dhacaysay intayna dhicin Cabdi intuna dhicin TPLF Cabdi xiriir weyn ba ka dhicin wada shaqaysanayaan aad u sareysay ahaan waxay dhaheen Cabdi waa isdhiibin ninkan awoodsan tusayna waan la dagaalaynaa did markuu jigjig ku yimaado waa kii jigjig abi tagay Cabdi wada fadhiisan Cabdi waa uu ka diiday wala si xun buu u bahdilo oo la hadlay abi markuu Addis Ababa ku noqday waa kii ciidamada yiri faragaliye jigjiga ninkaasi inqilaaba waa kii inqilaabkii iyo weerarkii sida ku bilowday nimanka Tigrayga markii waxay dhaheen dagaal bay dhaheen waqti Cabdi dagaalkii muuna gelin Tigray balantii oo baxay anaga shirqoolisan dadka nagu saacadan ma awoodaan in la bambeeyo ciriir dhul laga garaaco meel ay qaxan ma hayaan ana isgeyn Cabdi asaga Addis Ababa isgeeyo diyaaradii airport taayna halka intuu lugtiisa ugu taay ku raacay waa kii Cabdi sida lagu xiray Tigray waa kii la weeraray Tigray kaligood ba dagaalku ku noqday markii waxay rabeen Tigraygu kulli inay ninkan isku dhacayaan dardarta iyo isbedelada uu wada iyo Eritreada dhulka Tigraygu saxiixayo qorshihii noo waxay lahayn Tigrayga iniga Soomaaliya labada dhamaad ka dhufataan Itoobiya sidaa lagu burburiyo ama korneelka dalka laga qabto oo xal kale oo ninkan dhaamaad la timaadaan banaan ayagu Tigray waxay eersanayaan xasuuqi loo geystay inuu Cabdi ballanta qayb uga baxay qayb kamid ah inuu uga baxay ayay Tigray u aaminsan yihiin oo Cabdi hadduu is adkeyn lahaa korneelkan uu cabsan lahaa oo dhihi lahaa haddaad Soomaali weerarto Tigrayna waa ku soo taagan laba dagaal ma gali kartid
إنه ده لكن أبي مركي وعبدي لقعنت كل جاي وحول التلفزيون قرن كشجع إنه يقول وين لما قاضب أو حيل الدولة دي كوات كات متكمدة جبيني أو سومالي ده وإنه سومالي عيدا بدل لهيد إنه نكان تكريك أمر قادني أو سيد أي دهان يسوي وسميني يمودي لكن الدو أبي قعنت اللي قول نك عبدي قعنت اللي قول عيدا ما دي سركيش لك العيدي إن عجر لك السداي عصب marka oramadu waagaas guul bay halkaas ka gaadhay tigraygu halkaas guul dar uga soo yitay marka abdi haduu maqala tago inay dhoonta ku dhagaan oo dhaam xadsan loo gashay wixii lagu sameeyay adaa mas'uulka ah oo ayagu halkaas ku daldalaan mid waa midaas abdi ma isku aamini kara ma tay kara ma kale ana ilama abdi inuu ma kala tagi ilama abdi inuu ma kala tagi abdi waxaan ogeyn markuu dhacayay warbaahinta ugu dambeysay waraysiga la yeelatay waxay tiri jeel ogaadeen wixii ka dhacaya loo raacay wuxuu yiri geetaajo asafa oo taliye sirdoonka dalka Itoobiya oo Tigray ah oo nin saacada lagu raad joogo oo hada dawladda Itoobiya ay milaayin dul dhigtay oo la leeyahay maqal sal dhiga dhigtay oo halkaas fadhiya oo nimanka Tigraygu halka nin maskax badan ka jooga ayuu ku eedeeyay Tigraygu markaas sii baxayeen marka Tigray waqti cadmeen wax ka qaban karin dalka isbedel baa ka dhacay wuxuu yiri geetaajo asafa ayaa wixii ka dhacay halkan sameeyay bir oo nagu amrayay bir isagoo warbaahin si toos ah u sheegay geetaajo asafi wali uu nool yahay halkii fadhiya iyo nimanka Tigrayga weeday qodobna waa qodobkaas oo abdi inuu Tigray isku aamini oo aanay maqala tagi ilaa ma aaminsani mid kale way noqon kartaa in uu tago oo la sabanayo leeyahay warniyahow nala jimhadee ama deegaanka Soomaaliya tag oo anaga ku taageersan oo dawladda Itoobiya kala hadleen abi anaga cadaadin in halka tagna xisbi TPLF falka kaga dhawaaqdo in halka taageero weyn ka raadayso oo Soomaalida aad nool xagasho ayada halkaas waa midaas noqon kartaa laakiin abdi haduu intuu maqala tago oo taageero halkaas ka raadsado deegaanka Soomaalida dadku waxay soo xusuusanayaan dhibaatada ay Tigray geysteen hadda iyo waxa bilaaban colaad maartay asaga looga soo horjeedo halka taageero weyn ku way kara soo Tigray waxa geysteen ee dadka la soo xusuusinaya laakiin abdi haduu dadka intuu gees uga fadhiisto dal dibadii aad iyo sababtiisa iska joogay Nairobi soo galiyaaba uu ka fadhiisto cidina in hadda wax u qabsano si dib ordi ilama sababtoo wixii duufaan socday waqtiga ugu dhamaaday laakiin haduu saacadan ay Tigray raadis noqdo abdi waxaan aaminsan halkaas inuu guul daro weyn kala kulmo ururkana naftooda ka hadleen sideenta abdi way ka hadleen cadaani baa su'aal laga weydiiyay sideenta abdi ilay cadaani waa fayeenka oo nalaf cadaani wuxuu sheegay abdi ilay markii hore ayaga inuu xidhnayn ayaguna ayna sharci horgeynin dawladda Itoobiya xidhnaa wixii uu xidhnaan ayagu waxay dambi u arkayeen inay wixii ay ku haysteen kadib ayagu ay cafiyeen laakiin wuxuu yiri taanadii anaga ay TPLF abdi ilay tiimsna galaan wali halkeed waa yiri farakama qodna biir waqtigeeda ayeen imanaysaa biir marka waxaad moodaa ayaguna halkaas inay onartu ka gaabsatay ayaad moodaa wakaas waa maasanta waxa jira dad badan oo qoraal ay ah iyo hanjabaad inta ba soo qorayo sida page mataqana street diirada mucaarada iyo kuwa badan oo moodo abdi inuu iyagu xirnaa ma dadka maxad dadkaasi horta waxa iska jira deegaanka Soomaalida koox badan buu leeyahay kooxda Siraaj iyo maartay xoogag badan oo mucaaradkii Mustafa mucaaradka ku ahaa ayagu abdi ilay kuwii u xidhnaa bay ahaayeen abdi waqti la qabanayay ragga Mustafa mucaaradka ku noqday ee dhoonta u galay